waa su'aal ballaaran xafiiska garyaqaanka qaranka dhismihiisiiba wax weyn oo noqdo xafiis ka mid ah xafiisyada dawladda oo ku jira qaab dhismeedka dawladda oo u qabta adeeg laamaha kala duwan ee dawladda marka laga soo bilaabo xukuumadda ilaa iyo heer degmo u qabta adeeg sharci ama noqoto mid lagu talinayo ama mid noqoto mid laga faaciyo garsoorka hortiisa yani inuu jiro xafiis caynkaas oo dalka ka dhex jira waa arrin wax qabad lagu weeyaan markaan hoos ka soo daadegana waxyaalaha la taaban karo marka laga yimaado dhismaha xafiiska waxaa ka mid ah in la helo faafinta rasmiga ahayd oo bilo u soo baxda oo sanad u soo baxa waxaa ka mid ah in la helo wax qabadkiisa waxaa ka mid ah in la helo in la sameeyo xeerka nidaamka xukuumadda oo imika qabyo qoraan oo ka soo dhaqaybihiisa hor dham ay soo dhamaadeen iminkana diyaar u ah in loo gudbiyo maxay golaha wasiirada loo gudbiyo oo xiriirka gebi ahaanba maamulaya xukuumadda golaha wasiirada marka laga yimaado agaasimayaashii sidweeshii heer gobol wasaaradihii xilkeedii waajibaadkoodii hay-adihii wakaaladihii shirkadihii dowladda lahayd ama wax kulahayd waxay ha noqdeen xiriirkii ka dhexeeyey dowladdu siday isugu xidhan tahay marka la eego xagga ufuqiga amaba horsentaalka la eego ilka aragtiga marka xagga jooga loo eego sida isugu xidhantahay yani xeer ma xiriir ka dhaxeeya ma si wada shaqeynayaan xukuumadda iyo qaybaha kale ee baarlamaanku marka waxa weeye waa wax qabad la taaban karo xafiiska garyaqaanka qaranka uu sameeyay waana ku maasantii